eraboorka aadan cabdulle ayaa la jaan qaaday kuwa caalamka iyadoo ay u dhan yihiin agab kala duwan oo ay isticmaalaan eraboorada caalamka waana mid aad u mashquul badan oo ay isticmaalaan diyaaradaha kala duwan ee ka kala yimaada caalamka wadamada deriska iyo kuwa isaga kala goosha dalka gudihiisa xiliyadan oo kale oo ay fasaxa ku jiraan wadamada reer galbeedka oo ay Soomaaliduna ay degan tahay ayaa dib ugu soo laabta dalkooda wadanka waxa ugu dambeysay 1995 markii hore waxaan ka dhoofay eelboorka yar ee Cisliyan ka dhoof jawiga maanta aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama aan markii ugu horeysay aan garoonkan ka soo dago waana aad aan u faraxsanahay waxaan wadaa maamo eedadey marka insha Allah runtii waxaan la kulmay soo dhaweyn aad u wanaagsan marka insha Allah haddana waxaan rajaynayaa mataqaanaa mid ka sii fiican inaan wadan kala kulmo halkan waa waaxda socdaalka oo ay laba saf u kala galaan dadka haysta dhalashada ajaanibta iyo kuwa u dhashay dalka Cumar oo ka tirsan saraakiisha waaxda socdaalka ayaa ii sharaxaya meesha aan taaganahay waxa waaye waxa loogu talagalay dadka muwaadiniinta ah ee Soomaaliga Somali citizen dadka ayaa loogu talagalay inay koontarka istaagaan dadku marka ay soo degaan diyaaradda ay ka soo degaan diyaaradda markay ka soo degaan waxay toos ula kulmaan saraakiisha immigration-ka ee fadhida buudadka iyaga u shaqeeya visa siiya wixii Soomaali ahna waa halkan ay yimaadaan wixii ajaanib ahna waxay tagaan halkaas geeskaas kale waxa ku qoran ajaanib foreign marka nidaamka markii loo dhameeyo waxay checking-ka ay maraan waxay u gudbaan dhinaca boorsooyinkooda qaataan kadibna halkaas ay ka baxaan suunka wareega ee boorsooyinka sida ayaa dadku u sahlaya in agabkooda ay ka aruursadaan iyadoo la sii hubiyo in qof walba uu qaatay boorsadiisa halkan aan taaganahay waa meeshii boorsooyinka dadku marka hore aad ayay u dhiqabeen boorsooyinka markay diyaaradaha ka soo degaan waa la tubi jiray kadibna nin walba boorsadiisu la bixi jiray يعني بوق فرق بدن باك تاجنا لكن هذا واحد وجدان بورسوين كا ماشي عصري غلب عصري وبورسوين كوريجية آد مركز دتكو هالكري ماذا بورسو وريكتي أي أركان كده من ويقاتان مركز والله ربح حي يبتدي هوري horumar ayaana la sii tiigsanaya insha Allah laakiin mararka qaar sida caadada ah diyaaraduhu waxa ay soo lumiyaan amba ay ka soo tagaan boorsooyin taas oo ay sababto in rakaab ay cabasho ka muujiyaan warqadda aan wato waa Turkish Airways package-kayga ayaa ku qoran 29 June ayaan soo dhoofay up to now ma haystay ilaa 3 package boorsooyinkeeda xafiiskooda waa la xiriirinay wax war ee kama haysan ilaa hadda marka waxaan u baahanahay boorsooyinkayga inaan Turkish Airways ka helo ama aan challenge la sameeyo hadii ilaahay raali ka noqo markaan ku laabto dalkan ka imaado wallahi kulli hadii airline-kii khusaysa ayaga airline-kii dadkaas la xiriiraan kadibna boorsooyinkooda ayaa loo baadi goobaa si ay u helaan taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa ii sharxaya nidaamka ay ula tacaalaan dadka soo galaya dalka iyo kuwa ka baxaya airportka Aadan Cadde waa airport international hay'adda socdaalka iyo jinsiyaduna waxay qaabilsan tahay qaybta socdaalka dadka ka baxaya iyo dadka soo galaya waajibka halkaas aanu ka leenahayna waxa weeyaan in la hubiyo dadka soo galaya dokumentiyada ay wataan iyo sharciyada ay ku soo galayaan sidoo kale waxaan hubinaa dadka ka baxaya iyaguna inay sharci ku baxayaan baasaboorradooda la hubiyaa waxaa la qaadaa wax kasta oo qofkaasi lagu xaqiijin karo inuu xaq u leeyahay inuu ka baxo airportka ama soo galo sidii shilkii daallo u dhacay hay'adaha amnigu wax weyn bay ka qabteen waxaa laga yareeyay saxmadii airportka saarneeda gaadiidka oo aad ogsoon tahay in wax badan laga qabtay wuxuu ka mid yahay airportada security-giisu ugu adag yahay ayuu hadda ka mid yahay oo adigana aad laga yaabo inaad marqaati ka noqotay marka wax weyn baa laga qabtay waxaana mahaddaas iskale hay'adihii ka shaqeeyay hay'adihii amniga ayaa iska lahaa waxna uu taliyuhu ugu baaqay Soomaalida dibad joogta ah inay dalkooda dib ugu soo laabtaan hay'adda socdaalkuna ay soo dhaweyn doonto anigoo deeqa ka imaaday London imidna wadankii hooyo aadna aan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay inta maqan
waddankiina soo booqda haddaan immigrationka ka hadlo wallaahi sanadka hore way ka jaanbadneed laakiin sanadkan say u fududeeyeen wax walbaba maasha allah since 2012 ayaan sanad ka soo imaan jirnay dalxiis dalka hooyo waan muddo badan ka maqanahay sida ujeedin amniga ugu toosay leenka ugu toosay waqtiga samarka la soo gaaray waxa loo baahan yahay in waddanka lagu soo noqdo la soo booqdo faamiliga la soo booqdo dhulka la fiiriyo amniga aad u saxmay airportka soo dhismay isbedel badan ka dhacay halkan aan joogno waa garoonka aadan cabdulle usmaan maanta ayaan ku soo degay alxamdulillahi rabbil caalamiin maalin walba boqolaal qof ayaa ka dhoofta boqolaal qofna way ku soo laabtaan dalka qurbajoogta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa inay dalkoodii maalgashtaan ay ku soo laabtaan waxa lagu nool yahay Iraq waxa lagu nool yahay Yemen waxa lagu nool yahay Syria waxa lagu nool yahay Liibiya waddankeeni waddan ka fiican ma jiro waxa laga sheegayana waa been horumar uu sameeynaya dhalinyarada niyaday hayaan anigana waxaan ka tirsanahay xafiiska madaxweynaha dawlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya saldhigayna waa magaalada Baydhabo muqdisho waa nabad Baydhabo waa nabad Kismaayo waa nabad garow waa nabad waxaan ugu baaqaa shacabka Soomaaliyeed inay ku soo laabtaan ciidoodii hooyo tan iyo markii